الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين سمسم oo idin wata video kale oo jadiid ah youtube-keeda qaybta cunto karinta kusoo dhawaada saxaabta meel walba ay joogtiin. maanta waxaan sameyneynaa baasta iyo suqaar, baasta makarooni iyo suqaar ayaa maanta sameyneynaa. alaabtii laga sameyn lahaa hadda ayaan idin sharxayaa. soo dhawaada. inta waxaan loogu jirta kiilo hilib ah, hal xabo basal weyn aan soo jarjaranay, yasar iyo bataatis, barbarooni iyo basal iyo kabsar caleen iyo tuun la isku soo tumay, buhaaraad iyo maaji, tuun, huruud. inta waxaa laga sameynayaa hilib suqaarada. basasha ayaan dib kasoo saaranay, hilibka suqaarka oo yaryarka loo soo jarjaro oo baastada lagu cunayo insha allah. basasha maxamar ka dhigo, gaduud ka dhigo basasha xoogaa, aysan kaa gubanin, aysan cad ka ahaanin, si oo hilibka dhadhan fiican kugu yeesho. hadda waxaan ku daraynaa tuuntii iyo basasha si fiican isugu galabsiiso, si fiican isugu soo qas, labadooda gaduud ka soo wada dhigo. hilibka soo qaado markay gaduud ku noqoto, si fiican u galabsi, hilibka ku darso. hilibka si fiican isugu qas iyo basasha iyo tuunta. hilibka markaas si fiican isugu qastid, waxba biyaha ku darin calaa duul, isaga ayaa biyo dhalaa insha allah, si uu dhadhan fiican kugu yeesho. si fiican isu dhexgeli adoo waxba kale ku darin, basasha iyo tuunta iyo saliidda bis. si fiican markaa isugu soo qastid oo is dhexgelisid, maasha allah ka dhigtid. nala socda meel walba ay joogtiin. hilibkii asagaa biyo dhalay, waxba biyo laguma darin, saas ugu jeedin biyihiisa waxaan oo dhan. markuu biyaha dhan gursado biyo kale lagu sii daraa bas oo bislaa lahay. hore biyaha looguma daro calashaan, si oo dacam fiican kugu yeesho, maasha allah kugu noqdo. waa ka biyihii waa gursaday. haddana waxaan ku darsanaynaa wixii carcarfaayay oo loo baahnaay. qal ama liimo, buhaaraad shakal oo laba nooc ah, milix ama cusbo saa u taqaanid, iyo maaji, huruud cuntada lagu daro. iyo haddii u baahan tahay qalka haysan liimona ku bedeli kartaa. haddaa labadooda isla haysatana labadooda nusin usoo ugu dari kartaa, sidaa jeceshaadba. dhadhan fiican uu yeelaa qalka iyo liimada, iyo haddii lagu daro hilibka wax yaroo biyo kuleel korka ugu daro marka uu ku bislaa lahaa hilibka. mar walba waxaa wanaagsan biyo kuleel in lagu sii daro, si oo hilibka si fiican u bislaado, dhadhanna kugu yeesho fiican. haddana isku soo laabahayna waa daboolnay. hilibkii waa kaas. haddana waxaan ku daraynaa bataatis yaryar loo soo jarjaray iyo jasar, kaaroot hadaa u taqaanidne oo si fiican loo soo jarjaray, yaryar laga soo dhigay. halahan ayaa lagu huriyaa. haddana isaga waa soo bislaaday hilibka. bataatiskayana dib badan ma qaadaan, wax yar huwisile u baahan yihiin. saas oo la socdo walaalayaal, meel walba ay joogteen. qeyr badan ayaan idin rajeehayaa. haddana daboolkiisa saar intuu soo huuraayo. haddana waxaan diyaarsanaynaa dalac bilaashkii baastada lagu dari lahay. hilibka suqaar waaye, wax gadgaduud laguma daraa. intana hal xabo basal oo weyn, tuun, kabsar caleen iyo yaanyo shishiid, maaji iyo milix. baastadiina waa soo diyaarsanay. haddana miiris bisaa u dhiman, waa bislaatay idani. baastada ma laga dhigo bajaq marra mise koota aadna ma laga dhigo, normal ayaa laga dhigtaa. intay sii huuraysa dalac bilaashka ayaan hadda dib kasoo saarahaynaa. la socod wanaagsan meel walba ay joogteen. haddana basashii ayaan dib kasoo saaranay, dalac bilaashka ayaan reebsanaynaa iyo saliidi aan isku gaduudahaynaa. basasha si fiican maxamar ugu dhigo, si fiican isugu galabsii.
markii gaduud soo noqday carafteeda soo baxdo ayay fiican tahay, ay dhadhan cuntada u yeelaysaa. dalac bilaash heer sare kusoo baxaya oo dhadhan leh. waa basasha soo gaduudatay, toonta ayaan ku darsanaa haddana. toonta markii lagu daro basasha iyo toonta maxamar isla naqahayaan oo caraftooda isla soo baxayso oo heer sare ah. saas isugu soo gaduudi maasha Allah ka dhig. yaanyadii oo soo shiiday, 2 xabo yaanyo waaweyn oo soo shiiday. waa yaanyo ceyriin ah oo cad iyada dhan maasha Allah, laakiin waxaa lagu gaduudiyaa yaanyo shiishida lagu daraa. dalac bilaash gaduudana kusoo baxaya yaanyo shiishid. 1 xabo aan soo furay. yaanyo shiishidi iyo yaanyada caadiga ahayd iyo toontii iyo basashi, milix iyo maaji waan ku darsanaa haddana. intaana isku soo bisleehayna haddana. dalac bilaash oo heer sare kusoo baxaa oo dhadhan wanaagsan leh. la socod wanaagsan meel walba joogtiin, kheyr iyo barwaaqo ayaan idin rajeeyaa insha Allah. alla waa mahad leh. dalac bilaashkii waa daboolnay. hilibkii jaahis waaye, bataatiskii waa ku huuray iyo karoodkii. saas ayuu jaahis ku yahay. hadda waa la damihaa. waxaa u dhiman bis barbarooni, kabsar caleen iyo toon iyo basal nus aan soo jarjartay. halahaana kusii huura isagoo dansan, ma u baahna dab kale. caraftiisa iyo wanaaggiisa waa ku dhammaata saas. jarriba saan u sameeyay maasha Allah. qofkii yaqaan waa yaqaana, qofka kale ka faa'iidaysi wacan insha Allah. waa bislaaday. dhadhamiska waa xaggayga maasha Allah. dacamkiisa caraftiisa kulli jaahis oo naqayay. dalac bilaashkiina waa kan asagoo jaahis ah. waxyar waa sii gursaha, waxyar biyo waay. hadda xoogaa adeeg inuu noqyaa fiican. dalac bilaashka uu biyo aad kaaga ahayn, saasoo dhadhankiisa fiican ugu soo baxaa. kabsar caleen iyo toon aan korka ugu darna oo laisku soo tumay. saasaasna caraftiisa dhag ku tahay. biyihii waa gursaday, culays oo naqayay. waa la damiha isagane. maasha Allah. saas ayaa lagu damiyaa isagane, dhag waaye. haddana waa guraynaa baastada soo jaahisiinay. baastadii oo jaahis ah. haddii aa u baahan tahay baastada oo cad idoo aa guratid waxba kuma soo darisid. haddii kan xoogaa dalac bilaashka ayaa kusoo qasaysaa inay loonkeeda axmarku wada naqay. haddii ay jeceshahay, qofba dooqiisa sidoo jecel yahay ha ka ciyaaro. aniga waxyar dalac bilaashan kusoo qasay. qaybna waxyar sacfaraan aan kusoo qasay see loon oo noqoto 2 nooc ah oo qurux badan. qofkii rabana wuu ku qasan karaa maxaa yiraahdaa huruudda waxyar si kalar fiican u yeelato. soo dhawaada asxaabta meel walba ay joogtiin. youtube-keena jadiidka kusoo dhawaada.
baastadii waa gurnay. haddana dalac bilaashkaan korka ka saaraynaa. dalac bilaashka qofka jecel gaduud aad inuu ka dhigayo oo u badsado maxaa yidhahaa yaanyo shiishiita waa ka dhigi karaa, laakiin anisaan jeclahay gaduudka aad kama jeclo. yaanyo shiishiitana marra waxay leedahay maxaa yidhahaa gaaska aad u kicisaa ma la iska badiyo. waxaa ugu fiican yaanyada kaligeed in dalac bilaash laga dhigo aad u macdaa, laakiin dadkaas ka jecel shakalka gaduudka quruxda badan. hilibkii jahis ayaan kor ka saaraynaa. haddana hilibka markaasaan u samayso wax walba waa lagu cuni karaa. haddaa rabto canjeero, haddaa rabto muufo, haddaa rabto bariis cad, ay wax uu diidayo ma lahan. haddaa rabto baasta dheerdheer, makaroona, nooc walba waa loo samaysan karaa saan oo hilibka ah. suqaarka saan haddaa u samaysid nooc walba waa ku cuni kartaa oo alaab kale ah. waa diyaarina haddana baastadii. haddana iyadoo jahis ah. haddana waxaan soo diyaarsiinaa salaato. carafteeda lagama sheekeyn karo maasha allah. wixii indhaha kaa deeqo ayaa uurkana kaa deeqaayo. aad iyo aad ayay u qurux badantaha u macaan badantaha. kusoo dhawaado barasho wanaagsan. salaatadii waa soo diyaarsanay. qajaar, yaanyo, basal ka kooban iyo qaska caadiga ahay. meel walba ay joogteen waxaad rajaha kheyr. kusoo dhawaad videoga jadiidka. like, share, commenti, subscribe noo saara. jaraska furta sida nagu soo dhaco maxaa yidhahaa wax walba aan soo diyaarino insha allah. meel walba meesha joogteen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.